السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan naga daawanaysaan Ajmal Service asxaabta igu xiran dhinac walbo soo dhawaada. taariikhda waxay maraysaa 15 bisha koowaad 2023. waxaa jooga hotel Nasiye, waxaa jooga qaasatan iskooyska Tabeelaha, laamiga Tabeelaha markaa ka imaatid X control Afkooye oo aad soo aadid dhankaas iyo Ceelasha ama Afkooye. waxaa soo maraysaa Galmudug Tabeelaha Weydow Garsbaale waaka. macnaha waxaan rabaa inaan idin fahansiiyo si fudud oo qofkii xitaa waqti hore ugu dambeysay uu arki karo muuqaalkii macluumaadina heli karo. Tabeelaha iyo ilaa Ceelasha dhulku isku xirmay oo meel banaan ma laha. waa aragtaa sida jaam u tahay, ciriir u tahay, iskooysid ugu jaamka badan waay iskooyskan. laamigana la saaray, laamigu laakiin meel dhuxul ku soo haraya, balse laamiga waxaa looga soo leexanayaa dhanka waqooyi ama qiblada. markaa ka imaatid Xamar, wadada waxaa u soo raacay dhanka qiblada. qiblada dhankeeda u soconaynaa. waxaan tegaynaa dhul aan aniga u arkay fursad. markaan saas idin dhahayo, meel kasta oo aan u arko meelaha lamidka inay ka raqiisan tahay waa la soo degdegaa muuqaalkeeda saa uga faa'iideysataan. dhulkan waa dhul deegaan ah aan idin wado, la degan yahay, maasha Allah tabaarakallah, waliba xaafad qaali ah, balse qiimaha dilan aan ku soo helay. qiimaha dilan qofku uga faa'iideystaan alxamdulillah, qofka uga faa'iideysanin haduu qiimaha gadaal ka kaco iskuma eedeyn doono. laamigu soo haray waxaa ku socona wada jaay ah waay. jidkan waa 20 cabirkiisa, waa jid jaay ah, wuxuu u leexdaa dhanka waqooyi ee iskooyska Tabeelaha. markaa u soo leexato waxaa soo maraysaa xaafadahan waxa oo isku eg oo dhisan, waxaa la yiraahdaa Safari. xaafado waxa way aad u qurux badan maasha Allah tabaarakallah, isku qaab loo dhisay, xaafad xoogaa shidan ah. Safari la yiraahdaa magaceeda. xaafadan kama dheera marka dhulka. wadadana ku soconaynaa biidnillahi alkariim aan ku tagi doonaa. jidkan fil mustaqbal waxaan rajaynaynaa inuu laami noqdo. dadka qaarna waxay leeyihiin waaba la qorsheynayaaba. laamiyada magaalada Muqdisho bartamaheeda meelo badan ee halbowle ah ee muhiim ah baan weli laamiyada la saarin, laakiin waxaa dareemayna isbedel badan inuu muuqdo. in 5 sano ka hor sida ahayn amaba 10 sano ka hor sida ahayn aan dhaho aanan maanta ahayn. 10 sano ka hor magaalada Muqdisho sidii ay ahayd maanta ma aha. wax badan iska bedelay. isbedelkaasna wuxuu noo muujinayaa rajo iyo hididiilo ah in aan geli doono biidnillahi alkariim dhan walbo horumar, dhanka dhaqaalaha, dhanka caafimaadka, dhanka nadaafada, dhan walbo, dhanka waxbarashada. taana dee ma qaban karaan haddaad tiraahdaan dowladdu ma isaas qabato, dowladdu ma kan yeesho. waxaa muhiima shacabku ayaga inay isbaraarujiyaan. waxyaabaha anaga ka shacab ahaana lagu leeyahay waa inaan ka taxadirno, anaga waajibkeena inaan sameyno. marka wax walba way hagaagayaan, laano bulshada lagu sheegayo waa qoysas isku tagay, dan dowladdu waxay maamushaa markaas bulshadii oo dhan. laakiin haddii afraadi ama qoysaski ay halaysan yihiin, dowladdu waxba ma qaban karto. waxaana laga rabaa qof walba oo Soomaali ah inuu asi ahaan waajib isi saaro. waajibna uu iska saaro bii'ada uu ku nool yahay. guriga aad ku nooshahay ma kaa nabad galaan deriskaaga, ma kaa nabad galaan dadka kugu hareereysan, ammaan ma siisaa. haddii ilmo kuu joogaan ilmahaaga ma laga nabad galay. inaad ilmahaaga la socoto, maxay banaanka ka qabtaan, maxay soo qabteen, maxay sameeyaan, inaad ka warqabtid aa ogtahay. in aad ka warqabtid gurigaaga waxa ka jiro. intaas haddii adi lagaa helo oo ilmahaagana aad macnaha banaanka waxay bulshada kula dhaqmaan aad wanaajiso, adigana bulshada dhaqankaaga u hagaago, bulshadu way hagaagaysaa. jidkii jaayga ahaa waa ka soo leexday. wadadana hadda u soo leexday wadadii Safari waa taasaa jaayga 20 ahaa waa kana. jidkana u soo leexday kana bal hore ugu soconaa. gurigan intaan idinka tusi doonaa. qof walbana dee magaalada meel walba uu ka dego ama xaafad walba uu ka dego, hadduu asi nadaafada iyo gurigiisa quruxdiisa bilicdiisa uu ilaaliyo
wuxuu ku noolaanayaa nolol saciidaho uu ku qanacsan yahay qofkan qanaacada qalbiga ka timaada qalbigan wuxuu ku qancaa waxay aragtida indhahaaga wixii qanciyo qalbigaaga hore uga qancaya ku dadaalna marka nadaafada inaan ka shaqeyno waxa ugu muhiimsan aan mar walba ka hadlayo waa nadaafada haddaan 100% xoog ka saarno wax walba way toosayaan Soomaali Maxamed waan imaaday dhulkii aan rabay inaan idin tusiyo wadadan aan aragtaan waa jaay sidoo kale meeshaan ilmaha banooniga ay ku ciyaarayaan waa dhulka aan rabo inaan idin sheego warbixintiisa dhulkan wuxuu ku yaalaa tabeelaha area ama agagaarka xaafada Safari tabeelaha qofkaan aqoonin wuxuu ka xigaa dhanka waqooyi dhanna waa koonfur tabeelaha dhanna waa waqooyi dhinaca waqooyi buu xigaa waa 5 boos walba oo kamid ah cabirkiisu uu yahay 20 lagu dhufto 15 dukumiintiga dhulkan uu leeyahay halkii boos oo kamidaba waa dukumiinti Maxamed Siyaad Barre oo rasiidiisa barloog ah xaafadu waa deegaan dhisan 100% maasha Allahna ah dadkuna aad u jecel yihiin aad arki kartaan waa meeshan hadda ilmuhu ku ciyaarayaan oo barxadda guryahan filooyinka ka soo jeesanaya 5 boos waa bari bay u jeesanayaan 5 boos jihada ay u jeesanayaan waa bari cabirkoodu waa 20 lagu dhufto 15 dukumiintigooda waa rasiid iyo sabarloog dowladda dhexe Maxamed Siyaad Barre ah waxa ay ku yaalaan tabeelaha agagaarka xaafada Safari qiimaha lagu rabo halkii boos ee boosaskan kamida waa 38,000 oo aakhir ah waxa aragteen aadna mararka qaar maqashaan nus boosyo tabeelaha ku yaala waliba hadda meeshan aan joogo loota kadib ku yaala ee la iibinaya 34,000 waa nus boos hadda waxa ku hor keenay boos kaamil ah oo 25 ah deegaanka dhexdiisa ku yaalo wadada uu ku soo jeesanayo wada jaay ay tahay laamiga inta hadda aan soo soconay kaliya uu ku jiro cabirka boos walbana uu yahay 25 qiimaha lagu rabana halkii boos 38,000 oo war la'aan ah waqtigiisa kaaga dhumin maxaa laga dhimaya waa laasti waa qiimaha ugu dambeeyo oo lagu iibinayo dhulkan mootada ka soo qaato xamar meesha ugu dambeyso baa ku dul keeni karto boosasku waa kuwan wadada hormartan waa jaay ama 5 ruux oo kala duwan ha qaataan ama hal qof ha isku wada qaato dhul aniga sida aan u arkay qiimaha nus boosida dariska la ah la iibinayo markaan ogaaday aan u arka weeyaan qofkii ma helo inuu ka faa'iideysan doono inuu 100% allana ku mahadin doono anagana xusuusan doono kulay muuqaal kale idinkaga ma dhimano warbixin idin dhimanna ma jirto qof kasto oo warbixintan dhageysto dhameystirto uma baahna inuu inta soo wactamo uu yiraahdo dhulku intuu ku yaala qiimihiisa maxaa la dhimaa waxa soo dhan meesha ku sheegay qofka muuqaalka dhameysto haduu u baahdo falyatafadal waa diyaar haduu u baahnayna ha ka socdo tawa halka Soomaali Maxamed waa maasantihiin waa idin cimaamaday dad waxaa tihiin ma sha Allah tabarakallah loo shaqeyn karo laakiin waa idin salaam wa maasantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaah.